kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha iyo weliba kulamadii la ciyaaray shalay iyo kuwa maanta la ciyaari doono. haddaba natiijooyinkii kulamadii shalay oo la ciyaaray oo ay kamid yihiin Liverpool oo badisay iyo weliba Manchester United oo dabatay kooxda la yiraahdo Chelsea. haddaba macalinka Maresco ee kooxda Chelsea qaladaadka uu sameeyay oo looga faa'iideystay iyo weliba waxaan arki doonaa natiijooyinkii kale ee kooxda Real oo badisay sidoo kale iyo kooxo dhowr ah oo hore u badiyeen. fadlan haddaad ku cusub tahay barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha ee markasta aan halkan kusoo dhigno follow inoo dhex page-ka sii share gareey oo like-ta iyo comment-gana ka ilaabin sii share gareyna si oo asxaab fara badan ay u gaarto. haddii aad hore nala joogtana fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad share gareyso si asxaabtaada ay u arkaan muuqaalkeena. sidoo kale like-ta iyo comment-gana hanaga ilaabin mahadsanidin. haddaba aan ku bilaabaya kulankii derbiga ahaa ee u dhexeeyay kooxda Manchester United iyo weliba kooxda Chelsea oo markaasi marti loogu ahaa marti ahayd Old Trafford oo isla markaana kulankaasi oo mid aad loo wada sugay ahaa natiijada walow kooxda Chelsea aysan Old Trafford ku badin in muddo ah oo ay ugu dambeysay 2013. haddaba shalay maxaa dhacay garoonka qaladaadka ka dhacay iyo weliba macalin Maresco maxaa uu sameeyay. haddaba macalinka inta ay ciyaarta bilaabatay 6 daqiiqo markii ay mareysay ayaa goolhayaha Sanchez ee kooxda Chelsea wuxuu markaasi dibriyay ama uu jalaafo ku qabtay ciyaaryahanka Mpume oo weerarka ka ciyaara kooxda Manchester United. taasi markaasi oo u muuqatay in haddii oportuniga ama goolhayaha Sanchez uu dhaafo Mpume uu gool ka dhalin karo kooxda Chelsea. taana waxaa markaasi oo bedelkeedu goolhayaha Sanchez uu sameeyay inuu ciyaaryahankaasi oo markaasi foul ku galo isla markaana gudiilanta ganaaxa banaankeeda oo foul ku galo. taana waxay sababtay in kooxda la siiyo kaarka casaanka ah ama red card oo markaasi kooxda ay ku dheeleyso 10 ciyaartooy iyo weliba tababarihii oo markaasi bedelka uu ku degdegay isla markiina 6 daqiiqo iyadoo marayso isku wada bedelay ciyaartooydii oo idil dhammaan dadkii weerarka iman lahaa ama ciyaartooyda weerarka keeni lahaayeen sida Palmer, Estefao Adehe iyo weliba ciyaaryahanka Netropeto. Netro ayaa asna sidoo kale la sameeyay oo la bedelay. ciyaarta waxay markaasi noqotay mid kooxda Manchester ay xakamayso qadka dhexe dhinacaha difaaca meel walba markaasi Manchester United ay kubadda inta badan ay haysato sababtoo ah qadkii dhexe faaruq noqday garbihii labada ciyaartooy ka dheelisay faaruq bay noqdeen. wuxuu ku qasbay kooxda minus ku dheelaysa haddii xitaa oo tababaraha ku ekaan lahaa kaliya Estefao inuu bedelo oo Portiri keeno ciyaartu waxay ahayd meelkaas isku dheelatiran oo ma uusan fiirinin waxa ka imaan doona ciyaarta naftirkooda in ayaguba red card labaad ay qaadan karaan ama kooxda ka soo horjeeda Manchester inay red card qaadan karto. sidee buu dhacdaba Casemiro ayaa ayaguna red card ka qaatay oo laba mar inuu foul galay jaalo la siiyay mar kalena foul kale inta haddana sii gala sigoo jaalo qaba ama yellow qaba markaasi waxaa loo taagay kaarka casaanka. laba jaalo haddii aad qaadato waxaa ku xigo kaarka casaanka ama red card sida taqaano. haddaba kulamadaasi waxay ahaayeen kulamo aad iyo aad xamaasad u lahaa. kulamadii way soo wada idlaadeen oo Chelsea ayaa laga badiyay waxayna markaasi ciyaartu ku ekaatay 2-1 inay kooxda Manchester United ku badiso. sidoo kale Liverpool ayaa 2-1 ku badisay. Sunderland ayaa weliba 3-1 Wolves ku garaacday. sidoo kale Crystal Palace ayaa 2-1 ku garaacday kooxda West Ham. Tottenham iyo Brighton 2-2 ay isla garab dhaceen. haddaba kooxda Real Madrid 2-0 ay ku badisay iyadoo sidoo kale waxaa markaasi la ciyaarayaa maanta kulamada derbiga ah ay la wada sugayo ayay tahay kooxda Arsenal iyo Manchester City. haddaba Arsenal iyo Manchester City aad bay ugu dhiban tahay in kooxda Arsenal ay ka badiso walow Rodri oo markaasi oo booteeyay oo markaa yiri waa hanjabadan caadi ah Kenya waa ka arsanaynaa sanadkii hore iyo sanadii la soo dhaafay wax badan ma gelin laakiin hadda waa ka arsanaynaa waa dilaynaa sana yeelina. laakiin ciyaartu waxa Soomaalidu ay tiri waxa waay farda la isku hayo la isku maamaanay fagaaraha la keenaa kule wararka doona 12 saac iyo par ama 5 iyo 30 daqiiqo oo qaybta South Africa ama
bariga Afrikana waxay ka noqonaysaa 12 iyo qadar 30 daqiiqo ama 6 iyo qadar 30 daqiiqo sida u taqaanaba ciyaarahaas waan arki doonaa waxa iska bedela iyo halka ay kusoo idlaato iyo waxa kusoo kordha sidoo kale ciyaaryahanka Victor Gyokeres ayaasna wuxuu sheegay inuu markaasi ay ciyaari doonaan ay noqon doonto ciyaar oo si weyn isku soo muujiyo maadaama ay tahay ciyaar derbi ah ciyaartaasna ay markaasi noqon doonto maadaama Haaland uu halka joogo oo Haaland iyo Victor Gyokeresna ay goolinta xageeda tartan kala dhaxeeyo kulay waa arki doonaa labadooda halka ay ku biishubtaan iyo waliba kooxda Arsenal inay badin karto iyo waliba kooxda Chelsea City inay ayadu badin karto waa arki doonaa wixii markaasi ka soo baxa saabteeda qiimaha ay qaayaha naga mudan aad badan mahadsantihiin sidoo kale Barcelona ayaa ka teefan la dheeli doonta Athletic Madrid iyo waliba waxa isla dheeli doonaan kooxda Mallorca waan arki doonaa ciyaarahaas iyo inta badan sidoo kale Inter Milan oo ayaduna la dheeli doonto kooxda Sassuolo sidoo kale waxa dheeli doonta Torino oo ayaduna la dheeli doonta Atlanta iyo sidoo kale Lazio oo iyaduna isla dheeli doonaan Roma aad baad mahadsantiin asxaabteyda qiimaha qaayaha inaga mudan fadlan haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka barnaamijkeena waa ka codsanaynaa inoo share gareyso si asxaabtaada ay qayb uga noqdaan kuwa daawadayaasha nagu ah ay nagu xiran haddii aad markaasi inagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka haddii aad nagu cusbeenna inoo sii share garay like-ta commentiga ka ilaawin waa saaxiibkii Maxamed Abuukar Baariyo oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh